salaan kadib waxaan rabaa saddex qodob inaan ka hadlo. mid waa isku soo baxan iyo ducadan beesha ay isugu timid. ducada beesha ay isugu timid cadal wax kala maaha, xumaanna maaha, cidna lagu xumeeyeen. colaadda ka hor beeshan waxay gaartay go'aan inay isku timaado xarur xaajaa isku tahay saddex biri ay meel fadhido. colaadaa dhacday, waqtigii ballantana waa la gaaray. waxay marka beesha go'aansatay hal maalin oo fagaaro cadaa in la sameeyo. taas waa mid sababta loo sameeyay waxay tahay bariyaan suuq waxaa soo gashay imaan la duubaa beesha abgaa inaan tusno inay cadalo ammaan tahay ay nabad tahay oo imaan lagu duuba karaan tusno ujeedada taas kale waaye waa mid tan labaad waxaa la dhahay imaan la duubaa imaan waa dhaqan hadda waxa aan maqlayn oo muqdisho ka maqlayn waxaa waaye niman siyaasiyiin inay dhahayaan imaan aan duubayna dhaqanaa keeno أنا دقود أبقى أنا أهي هدي واحد كسر دقود أبقى أنا نين كسر أنا يلا أهي أنا دقود أبقى أنا أهي هذا إما أنه وحين نسوي جديين إني محمد يوسف ما كسرون إيه كان لغير ما أنت كده أقابل أنا كان أقابل أنا أقبل أنا دقود أبقى أنا أقبل وأنا قاعد ما أنت كده محمد يوسف مان وركيس متجر عد أقبل سنة مرها تن إيمان دوبي ده لما كسياسين ده وحلا الدوب كإيمان كمركل الدوب هايو وإن الدقود أبقى الأوقاتها وإن الإيمان هاللي أو هذا وإيمان نقل كمركل إلا مرسيا وإيمان نقل إلا حضر الدوبة إيمان سياسة فيري إيمان سياسة باش أبقى لك أوقات سعيد كسافة من كرتادة سياسي حمو وحو كان أنا أقبل من دون نقل كأبقى الصوب من الدوب لك أي كان حضر الدوبة أنا قاعد دورنا تصور كان كله باشان دولة معارضكم معها في الشباب اللي دولة كل واحد حصلتها ما ذكره محافظنا معارضنا معها صعب أي شيء وحوا الصومال 4.5 واي وحوا وتغير سو حبال غير صدا باش حقي لا دوسي حلباني ما دوسي وزير لا دوسي اغاسين ما دوسي وحال ارجل لا دوسي waxa soo markay duusiyay hadana sheekada waxa dagaalada inta ka dhacay dagaal siyaasadeed waa ma dagaalo herbaadiye ay isku haystaan jirjiri maaha waa dagaalo siyaasadeed niman siyaasad guud racan wada ka dambeeyaan dawladda waxaan u sheegaynaa niman siyaasiyiin dhigta u sheegaan inay dhigta kala wax ku maqasho beesha markaa inay maqasho baaqa u dirin ay maqasho beeshan beel nabadeed waaye waxayna ogoshaa in la wada noolaa oo si nabad lagu noolaado waxaan rabaa hirshabeelle iyo dawladda dhexe inay ogaadaan in beeshan beel nabadeed ay tahay hal dhiga wax lagu sheegay ma dhigta kale in dadka maqasho wada dhigaysato waxaan kaloo ku baaqaa nabadaan ku baaqaa ana duqaanahay duqna wuxuu ku baaqaa nabad waxaan ugu baaqaa dadka deegaanka degan nabad inay ku noolaadaan nabad wax ka fiican male ilaahay wuxuu dhahay amni salaama haddii nabad la helaa nool la helaa amniga waa fiican yahay inuu qof dhinta raalli ka manin laakiin waxaan rabnaa dawladda inay ogaato u kuur gasho bugtada meesha ku jirta inay ogaato meeshaan waxaa maanta la isugu yimiday oo taariikh dheer la garan karo walax sanadkiiba mar la yimaado oo laga aada dhigtay oo ummadda Soomaaliyeed ambase ummadda nafleyda ay garan karto aan isugu nimiday waana lagu guuleystay alxamdulillah intii ummada ee amba maqashay amba joogtay kor Allah ugu dhigaan leena intaas hadii laga gudbo waxaan ummadda u baaqaynaa aan wax dhibaato meeshan kuma jiraan laga mana qabo waxyaalo bitaamaho laba beelood ka dhacay waa jiraan ilaahay maslaxad u keenan leena intii ku dadaasha kana tala gashan ajir Allah ka siiyaan leena anuguna wax allaala wixii maarata karaan kaanya nabadaan u jilbalaabanay diyaarna waa u nahay horena waa ugu ahayn haddana waxaan ugu baaqaynaa adduunka ugu baaqaynaa inaad saaciba nabadda u jilbaxeydana intaas kadib saacadan waqtiga oo joogo 11 saac iyo 20 waxaan rabnaa meeshan waxaan isugu nimiday ziyaaro sanadkiiba mar la dhigo dadku waa iska war xumatashiil badan yahay
waxaan leenahay ziyaaran isugu nimid annaga meeshaan oo sanadkiiba mar la dhigo wax kaloo dhiba ma jiraan waxaan rabnaa oon kaloon ku baaqaynaa abgaal ismaan dhexdiisa in ilaahay wixii khilaafka dhex jira uu nabad ka naadiyo waxaanna soo dhoweeyaynaa haddaan nahay beesha meeshaan taagan wax alla wixii islaama ama maaragtay ummada nabadda ay wadaan gacmahan u dhigaynaa walaalaha xoogaa maaragtay oo abtiyaal iyo abkoow iyo abooto iyo eebbow leesu yahay khilaafka dhexdhexda waa nalama qurxoona waxaan leenahay masaalix khayr qabta alla dhex dhigo waxaan rabnaa oon intaan rabnaa meediyahan inaan uga faa'iidaysanno ilaahay inuu islaamkaas uu dhex dhigo islaax baynanaas uu dhex dhigaan rabnaa intii muslimahoo ilaahay uu ku soo dejiyana waxaa beesha mahan taagan waxay rabtaa inay soo dhowayso ay wixii ka aadan oo karaamkeeda ay maarata ka qaadato waxaan kaloon rabnaa oon ku baaqaynaa nabad oon ku baaqaynaa dadka ehelka iyo qaraabada iyo walaalkaan ugu baaqaynaa kama dhammin haddaanay isugu imaan waana walahaan isaga garannay adduunka wax u kacana waaye oo wanaaggeedu u kacay soo hugaanay hidhaahdaan hubkaan hidiya dhaqamaan soo hugaanay hidhaahdaan hubkaan hidiya dhaqamaan la yidhaah waa walahaan wax ka baran gobolka iyo degmada tuuladda meel allaala mihin la geeya waa meel anfacaysa haa hubkan hidiya dhaqamaane usoo hugaanay hidha walabaaba ku tuse yaaqtanaa waa mid hadda lahaay waa mid heerka anfacaysa heerkaan aqaanin ma yaqaan heerka yaqaana cayaar ka wanaagsan ma jirto adduunkaa laga dayaa waxaa la aadi jiray baarlamaanyada markii lagu cayaari jiray dawladdu halbahalow ka horreeyey kii aan noogu horreeyey oo wanaaggiisa haysan jirnay hidiya dhaqamaan tegi jirnay cadalaan tegi jirnay gobolka degmada xamaraa ugu xageeyey gobolladaan tegi jirnay meel oono waa kala hernay haddaan kala hernay berigaad nagala kulanteen waa hidiya dhaqamaan hubkaan u soo hoganna hiiradaa middaasaan ku idhi middaad maqlaysana waaba maqlaysaa nabad dawlad dalka hana taa soo socota haddana joogtee dawladda loo diibada baaxa 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 kiisaya duqa daradaarankiisaya uqa daradaarankiisaya anunku dadweynihiisii anoho anunku dadweynihiisii anoho dooxiisa waa la dujiyaa dooxiisa waa la dujiyaa dooxiisa waa la dujiyaa dooxiisa waa la dujiyaa